أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى halkana waxaynu ka sii qaadi doonaa duruusteeni inoo taxaneyd ee ku saabsanayd xuruufta carabiga barashadooda kaligood marka yihiin marka dhexda ku jiraan iyo marka ku bilaabmaan iyo marka weedha ugu dambeeyaanba waxaynu soo sharaxnay oo ka soo sheekeynay laba xaraf oo kamida xuruufta alifbaada koowaad oo ahaa hamsatul wasl hamsatul wasliga waxay nidhi waxaa lagu gartaa calaamad saa u taagan oo musxafka ku jirta oo laga helo oo ah calaamad yaroo saasoo kale ah hadaad u fiirsato musxafka hamsatul wasliga calaamadaasaa saaran waxaanu kale soo dhiganay hamsatul qadci oonu ka sheekeynay nidhi hamsatul qadcigu wuxuu u qeybsamaa mid alifka la saaray oo fatxa iyo kasra iyo dama ah iyo mid waaw la dul saaray ama waaw ama ya la dul saaray ama waaw la dul saaray marka haddii jeer haddaad u fiirsato kaasi waxaa loo akriyaa waa hamza weli kaasina waa hamza weli intooda dhanna waa hamza dhammaantood markaa ku qaldamin oo hamoodin inay xaraf kale yihiin haddaynu ka gudubno maanta hamsatul wasligii maadaama xuruuftii hore aad ugu soo sharaxnay iyo aliftii haddaynu ka gudubno waxaynu maanta u gudbi doonaa xaraf kamid a xuruufta carabida oo kamid ah xarafka labaad u yahay ba'da hadaad u fiirsato waxay leedahay dhibico quraata waxaa kaloo lamid a xaraf kale oo isna laba dhibcood leh aan kuu sheegi doono dhawaqiisa iyo xaraf kale oo 3 dhibcood leh isaguna waxaa kaloo jira xaraf kale oo dhibic quraata dusha kule isna bal u fiirso kan iyo kani waxay ku kala duwan yihiin kani dhibicda hoostu ku leeyahay kana dhibicda dushu ku leeyahay xarafka waxaa la yidhahdaa baa wuxuu ka soo baxaa dabnaha waxaana loogu dhawaaqaa baa xarafkana waxaa la yidhahdaa taa isna wuxuu ka soo baxaa carabka caaradiisa iyo ilkahaaga sare guntooda iyo carabka caaradiisa oo la isku qabtay marka cod ku soo baxayo taa thadina waxay kasoo baxdaa carabka caaradiisa iyo ilkahaaga sare iyo ilkaha hoose oo la isku qabtay oo in yar lasoo saaray carabka tha nuunkuna wuxuu kasoo baxaa carabka darafkiisa hore oo lagu qabtay dhinaxanaga sare nuun marka nuunka iyo ba'du waxay ku kala duwan yihiin dhibicda oo quraata ku kala duwan yihiin marka isku fiirso markaad qur-aanka akhriyayso bal haddaba u fiirso markay kaligood yihiin waa kuwaas markay ku bilaabmaan sentenska ama weedha haddii aynu aragno markay ku bilaabmaan keligood markay xarafka bilowgiisa ku jiraan waxaa loo qoraa xarafkiisaa loo qoraa dabeetana xaraf kala la qoraa ba'dii ama xarafkiisaa loo qoraa dabeetana ta'dii baa lagu xigsiiya ama xarafkiisaa loo qoraa yani waa taabayan yani taaba lagu bilaabaa tha'dii baa lagu bilaabaa saa loo qoraa ama nuunka baa lagu bilaabaa oo saa loo qoraa waxaad u fiirsataa waxay ku kala duwan yihiin oo quraata dhibcaha qoraalkoodi yani markaan ujeedo laakiin dhawaqii waa kala duwan yihiin laakiin qoraalkii inta hore waa isku mid lakin dhibcun bay ku kala duwan yihiin markay ku bilaabmaan kelmada saasaa loo qoraa bal ina eegna haddaba meelay ku bilaabmeen aanu raadino meelay ku bilaabmeen hadaynu helno insha allahu tacaala ba'dii waa taas ba'danaa ku bilaabantay senteniskaasuu ku bilaabmay ama weedhaas binaan ba haddii ay ta ahaan lahayd laba dhibcood baa dusha laga saari lahaa haddii ay tha ahaydna 3 baa la siin lahaa haddii nuun lahaydna hoosta laga dhigi lahaa dusha laga dhigi lahaa iminka waa ba waxaa ku xigay xaraf nuun oo ah kii bartanka weli maynaan gaadhin binaan halkaa waxaa ku jira nuuntii waa bartankay ku jirtaa u fiirso waxaa ku xiga zay halkaa nuun baa ku qorantay oo ka horeysa numiimi ka horeeyo ba'dii oo ku bilaabantay sentenskii ama weedhi waa bihi halkaa waxaa ku jira taa oo keligeed istaagtay maxaa yeelay ra'da iyo alifta iyo iskuma xidhmaan taadu min athamaraat nuunkii oo ku dhexda ku jira u fiirso halkana waxaa inoogu jira laba kelmadood oo aynu soo baranay imaka laba xaraf nuun iyo taa
wa antum midna waa bartankii oo hamsahay ku xigtaa ta kalena bartankay kusii jirtaa oo ta'da saasaa loo qoraa markay ugu dambeeyaan saas weeyaan markay dhexda ku jiraan labadiina waa kuwan haddana mar kale ya-diyo dhexda ku jirta iyo ba-diyo ugu dambeysa senten wedi nazalnaa nuunka iyose isku xidhmayaan u fiirso haddaba kaasi waa markay keligood yihiin markay bilowga yihiin haddaynu eegno marka ay dhexda ku jiraan haddaynu soo qaadano markay dhexda ku jiraan aynu baadhno sida loo qoro haddaynu xaraf qoro xaraf baa nagu filanba haddaynu qorno iminka xaraf quraata ka mida xuruuftii iminka ba-da baynoo soo qaad haddaynu xaraf xaggan ka xaysiino oon idhaahno jiim oo kale iyo baa iyo lam jabal jiim baa u fiirso oo ba-dii u fiirso hadda haddaad ba-da u fiirsato waxaad arkaysaa in dhexda markay gashay xagga hareeraha lagaga xidhmay taasi waa baa jabalun iminka haddaynu baadhno mid dhexda ku jirta anigii markii dhowda ku tusayey haddaynu baadhno mid bartanka ku jirta halkan baynoo soo qaad wa antum waaw iyo hamze wa an iyo nuun iyo taa iyo miim nuun iyo taa wa antum wa antum iminka nuunkii bartankiiba ku jiraa waa sidii ba-da oo kale dhibicdin baa marna hoos la dhigaya marna dusha la dhigaya wa antum ta'diina waxaa ku jirtaa dhexdii u fiirso oo markaa ta'da sida loo qoriyo bal u fiirso waa taa halkaasaad dareemaysaa tani waa miim waxaad dareemaysaa marka halkaasi inay tahay taa inuu ku jiro nuunna ku jiro taana ku jirto markay kelmadda bilowgeedii ku bilaabmaysayna waa tan bisuuratin markay ku dhexda ku jiraanna labadanba waa inoola mid nuun iyo taa halkanna waxaa ku mida ta'dii oo ku bilaabantay kelmaddii fain lam tafcaluu walan tafcaluu kelmaddii bay ku bilaabantay taa bay ku bilaabantay tafcaluu halkaas dhexdu ku jiraa nuunkii waquuduha annaas nuunkii dhexduu ku jiraa alif waa lagu taagay halkan ta'dii dhexda ku jirtaa daalka iskuma xidhmayaan uciddat lilkaafiriin marka waxaad kala baratay marka ay keligee tahay ba-du iyo marka ay bilowga tahay iyo markay dhexda ku jirto oo xaraf kale xaggan kaga xidhmayo labada xaraf lagaga xidhmayo labada koonah lagaga xidhmayo iyo markay ugu dambeyso oo iminka markay ugu dambeyso oo kale lacib oo kale laam cayn iyo baa laciba kelmaddii ba-dii baa ugu dambeysa haddii nuun ahaan lahayd dee dhexda dusha laga saari lahaa dhibic hadday ta ahaan lahaydna dhibic laba dhibcood baa la saari lahaa hadday ta ahaan lahayd saddex dhibcood baa la saari lahaa qoraalkii waa isku mida dhawaqii ayuunbaad hadhow u fiirsanaysaa marka doonaysa inaad barato si loogu dhawaaqayo marka iminka saddex xaraf aynu dhiganay maanta xarafka koowaad oo ahaa baa waxaana ku xigay taa waxaanu kaloo dhiganay thaa waxaanu kaloo dhiganay nuun mar baan duuduub u dhigay waxaad aragtay inay dhammaan isku qoraal yihiin laakiin dhibcuhu ku kala duwan yihiin midna laba dhibcood la siinayo midna saddex la siinayo midna xabad dusha laga siinayo midna xabad hoosta laga siinayo laakiin dhawaqoodii ay kala duwan yihiin laakiin markaad qur-aanka aragto waxaad garanaysaa un dhibicda halkay kaga yaalaan baad eegeysaa iminka nuunkii oo kale dushu kaga yaalaa u fiirso halkaas oo kale iminka markaad u fiirsato tan oo kale dhibcood baa dusha ka yaala halkan oo kale laba dhibcood baa dusha kaga yaala markaas waad garanaysaa inay ta tahay halkan laba xaraf oo isku qoraala ayaa la isdhinac geliyey midna waa nuun midna waa taa midna dhibic baa la siiyey midna laba dhibcood baa la siiyey taasaa ku kala duday wa in kuntum nuun iyo taa halkanna waa baa ugu dambeyso halkanna waa nuun uu ku bilaabmay kelmaddii halkan ba-dii baa dhexda gashay anigi imaka sheegeynay cabdinaa cabdinaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in si fiican loo fahmay
xuruufta oo markaad qur-aanka aad doonaysa inaad barato inaad higaadi waynu soo baranay fadxiyi kasrigi damihi iminka waxaynu tusayaa un xuruufta meelahay ka galaan carabida iyo qur-aanka bal sida marka la qorayo la akhriyayo inaad fahanto inay halkani ba tahay oo qaaf iyo ba isku xiga inay yihiin oo kale tusaale ahaan ood garato xuruuftii aad keligeed usoo baratay alifun baa-un ama dhawaqaad odhan karto alif ba ta tha jim markaad barato xuruufta laftoodii inaad qur-aanka markaad akhriyeysana aad musxafkii tagtana ay kuu dhib yaraato inaad garato xarafkani inuu ba yahay inuu ta yahay inuu tha yahay inuu nuun yahay aad dhibicdii barato meeshii kaga taalo iyo dhawaqoodina aad mar hore soo baratay insha allahu tacala waxaan ka rajeynayaa ilaahay inoo fududeeyo dhammaantiinba barashada qur-aanka iyo akhriska inagana dhigo dadka qur-aanka la saaxiibka ah qiyaamahana waxaan ilaahay ka baryayaa inuu qur-aanku inoo shafeeco wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh